بسم الله. أنا مقعي قوة سعيد صالح أحمد معلن سعيد بالله ويانا. ها كوا هدي إنه دبق الله كبح ما إنه وحنا هاي معلم بانا بربارية سعيد صالح أحمد وحن قلا هولها qoraalka iyo buugaga waa tan macalinimadu waa mihnadayda joogta hawlaha qoraalka iyo macalinimada hawlaha suugaanta iyo hal abuurka hawlaha miidiyaha ee marar badan ee hore soo saaray barnaamijyo idaacadeed iyo kuwa TV-ba waxaan ahay film sameeye filmiyaasha ugu dhaadheer ee Soomaaliya wadankeeda lagu sameeyay waxaan ahay Saciid Saalax buug feerka iminka aniga iyo qolo iga dambaysaaba rukunada buugfeerada oo dhan ka qayb gala oo baahiye baanu nahay wax badan baanu kuwa hore buugaga aanu qornay lagu soo bandhigay waxa laga yaabaa kan in qoraallo cusub oo hadda maanta lagu soo bandhigayaa aanan wadin laga yaabay saaxiibaday laakiinse kuwa hore mar walba buugagaasi aanu qornay waa lagu soo bandhigi jiray waxaanu ka jeedinaynaa waraaqo ama cilmi baadhiso waxa kala duwan cid waliba intayada waxaan ka soconnaa hay-ado badan inta markaan soo koobo oo qura waxaan matalan ka socdaa anigu asaaska iyo hogaaminta saddexda hay-adood oo af Soomaaliga wadamada af Soomaaliga ku wada hadlaa ka wada dhaxaya waxaan ka mid ahay asaasayaashii iyo guddiga fulinta ee ururka qaliileyda iyo hal-abuurka Soomaaliyeed ee xaruntiisu Jabuuti tahay waxaan ka mid ahay ururkii ka dambeeyay ururka af Soomaaliga xuduudaha ka gudba oo African Unionka hoos yimaada waanu magaaladan Jigjiga ku aasaasanay oo xaruntiisu tahay waxaan ka mid ahay asaaska akademiya goboleedka af Soomaaliga oo aga loo yaqaano oo halka ila taagan yahay gudoomiyaha hadda ninka sii haya aniguna aan asaaskii iyo hogaaminteeda guddigeeda fulinta ka mid ahay kuwaas iyo kuwa Soomaaliyeed oo dhan baan ka wakiilnahay waa dad ururada af Soomaaliya oo dhan iyo hay-adaha lagala hadlo u yimaada meel kastoo buug yaalona dadka ku baraarujiya waxyaabaha buugaasi laga faa'iidayo iyo bandhigyadu waxa ay yihiin waa ka qayb galay ama anigu waa ka qayb galaa dhowr iyo 10 sanadood baan bandhiga buuga caalamiga ee Hargeysa ka qayb galayay waa ka qayb galay bandhiga buugaga Muqdisho waan ka qayb galay kan bilowday bandhiga buuga ee Jabuuti 2 sanadood oo la qabtayba waan ka qayb galay Jigjiga mar baan imi kuwa hore kii koobaad waxaan kaga qayb galay kuwa kale oo aan tiro lahayn kuwa London iyo adduunka dibadda lagu qabto ama dalka Mareykan Canada inta waan kaga qayb galay bandhiga buugaga marka waa hawl noo joogta oo inoo socota oo meel walba marka buug yimaado aanu is dul taagno sidxgalka Soomaalida afkeeda ka qaadanaya buuguna afafka uu sido af Soomaaligu ka mid yahay waxaan waxa mideeya waa aqoonta waxa lagu soo wada hirtaa oo dadkan wuxuu isu yahay iyo midnimadiisa iyo ahaantiisa iyo isku xidhnaantiisa meel marinaya waa afkuna buugagan la soo bandhigayaa intooda badan af Soomaaliya ku qoran yihiin waa hawlo aanu ilaa intii af Soomaaliya la qoray aanu u soo taagnay oo aanu tabliiqa af Soomaaliga ku jirnay oo ku wadnay si ay u midayo ummadda af Soomaaliga ku hadasho iga sii hordhacaysa maanta hadalka aan galabta ku leeyahay bandhiga halkiisa ayaa waxaan sidaa oo waxyaabaha macnaynaya fariimaha buugu isoo faray anigu haddaad barnaamijka akhriday waxaan ku qornay fariimaha buuga naftigiisii
ayaa fariimo ii soo faray dhowr buug oo kala duwanba baa midba cid wax ii soo faray marka fariimihii ayaan halka ka jeedin doonaa waxa uu akhris hadduu yahay de waa furihii caqliga waa furihii aqoonta waa furihii garashada waa furihii gudashada waa furihii garaadkaasoo dhan marka haddaanu qofku wax akhriyin wixiisu waa ku xidhan yihiin hadduu wax akhriyo unbuna wax qori karaa marka akhrisku baallaha uu leeyahay waa wax fara badan deegaanka insha allah aad baan usii arki doonaa marka aan dhex maro oo aan doonayo inaan xitaa gobollo magaaladan ka dibadda ah yaro gaadho amnigeeda maqalkiisu waa nagu fiican yahay si fiican baa naloo ku tilmaamay laakiin waa sii ogaanaynaa ilaahay amniga ha u baahiyo ha ku ballaadhiye